fariisto beeniya sheeka baafinayo farqadii ninkii bar fariisto beeniya sheeka baafinayo gajiya u bakhtiya basaasto dantiisu ka badiyo bulaanye gajiya u bakhtiya basaasto dantiisu ka badiyo bulaanye waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan barwaaqo gaarne asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabteena meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada janaalka aad ugu barateen inuu idin soo gudbiyo casharo muhiima oo aad wax badan aad ka faa'iidaysan kartaan islamarkaana aan idin soo gudbinay casharo muhiim ah aan jecelnahay markastana inaan idin soo gudbino casharo muhiima halkan waxaa aalaaba idinku soo gudbiya anigoo Ismaaciil Abuukar ayaa halkan idinku soo gudbiya macallimiin way noo diyaariyaan casharada maanta waxaan idin wadaa cashar muhiim ah kaas oo loo baahan yahay in dadka ay fahmaan iyo waxa uu hadafkiisu uu yahay iyo meesha uu saldhigan doono cashirka maanta aan idin wada magaciisa idin sheego waxa la yiraahdaa tenniska waxa uu ka hadlayaa casharo sida haddii aan soo qaadanay conversation oo ahaa wada sheekaysi kana wuxuu sifeyn doonaa erayada sida loogu dhawaaqo in ay yihiin wax hadda dhacaya wax daqiiqado ka hor dhacay wax la soo dhaafay wax dhici doona intaba ayuu ka hadli doonaa tenniska waa erey naxweed u taagan waqti erey naxweed u taagan waqti weeyaan waqtigaas muxuu yahay waan quraacday waan quraacnayaa waan quraacan doonaa waa quraacday waan tegi doonaa waan joogi doonaa waan bixi doonaa waxyaabahaas ayaa loo soo qaadan doonaa tennisida waa 2 alif tennis the tennis number 12 tennis weeye 12 kaas tennis waan tegi doonaa balse micnahooda ugu horeeya ayaan dul istaageynaa casharada tooska ah wuxuu bixi doonaa toddobaadka soo socda insha Allah amba toddobaadkan gudihiisa waan idin soo gudbin doonaa hadduu ay yiraahdo marka ugu horeysa tenniska iyo wuxuu yahay iyo inta uu ka kooban yahay iyo magacyadooda ayaan halkan ku soo gudbin doonaa ku soo dhawaada aan idin dul maro cashirka What is a tennis? Tennis maxaa la yiraahdaa? What is a tennis? Tennis maxaa la yiraahdaa? Tennis is a grammatical word for time. Waa erey naxweed u taagan waqti. Where the English word tennis came from? Ereyga Englishka tenniska la yiraahdo came from xaguu ka yimid? The English word tennis came from Latin word tempus meaning time. Waa erey naxweed u taagan waqti kaas oo ka yimid erey Latin ah oo u taagan isla markaana u taagan waqti waa erey ka yimid Latin oo kaas oo u taagan waqti. How many tenses inteeba are there ayaa ka jirta in English grammar? There are waxaa jira 2 alif tenses in English grammar 12 tennis ayaa ka jirta in English grammar. What are they? maxay kala yihiin 12 tennis? They are waxa ay kala yihiin present continuous, present simple, present perfect continuous, past simple, past continuous, past perfect continuous, future simple, future continuous, future perfect continuous. 12 tennis aad maqlaysaan ama aan dhawaaqiisaan idin soo gudbinay 12 weeye waxay isugu xirxireen afar ay isugu xiran yihiin afar waa present afar waa past afar waa future halkaasna micno gooni ayuu xambaarsan yahay halkaasna micno gooni ayuu ka hadli doonaa marka waxaan idin sheegi doonaa insha Allah cashirka ugu horeeya aan soo qaadan doono oo aan idin soo gudbin doono toddobaadkan ama toddobaadka dambe hadduu Ilaahna gaarsiiyo ayaa noqon doonaa present continuous tense ayuu noqon doonaa maanta daan soo qaadanay saad u jeedaanba 12kii waxa ugu horeeya waa present continuous waa present simple present perfect continuous past simple past continuous
past perfect, past perfect continuous, future simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous. Marka intood waxay ka hadlaan wax hadda dhacaya, wax maalin kasta dhaca, wax daqiiqado ka hor dhacay, wax waqti la soo dhaafay dhacay oo haddana socdaan weli dhammaanin, wax dhammaaday, sidoo kale waxa aan la gaarin oo future-ka mustaqbalka. Intaas ay ka hadli doonaan 12kaas afar ayayna isugu xiran yihiin, bayna kala micno duwan yihiin. Marka insha Allah kaas ayaan soo qaadan doonaa toddobaadka soo socda oo Ilaahay gaarsiiyo, iyo sida looga hadlo iyo isticmaalka erayada waa soo gelin doonaa insha Allah. casharadeen conversationka meesha kama marna waa soo gudbin doonaa. tenniskana waa ku dhex wadi doonaa oo Ilaahay gaarsiiyo. tenniska markaan gudubno waxaan jecelnahay inaan galno for grammar inaan galnaa rabnaa. 4 grammar ugu loo isticmaalo eray naxweedyada ayaan isticmaalaynaa. Midkan waa eray naxweed, kaas kalena waa eray naxweed oo sidoo kale oo sifeeyo sida wax loo isticmaalo iyo magacyada la soo koobi karo iyo feebabka oo sida oo feebabka qofka jumladaha marka la dhisayo feebabka badan la geliyo wuxuu ka koobnaan doonaa eray badan ayaan ka soo qaadan doonaa grammarka laftigiisu insha Allah. Balanteen waa idinkoo wax fahma. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.